Sidee loo sameeyaa fasal cusub oo online ah adigoo isticmaalaya Google Classroom? Marka hore waxaan tegaynaa Google Classroom, waxaan fureynaa applicationada Google, kadibna waxaan ka dooranaynaa Classroom. Waa kana. Marka Classroom aad soo geshid, waxaa ka hor imaanayo fasal adi hore u sameysay hadduu jiro, ama fasal hore uga qayb gashay haddii uu jiro. Haddii aad rabtid inaad sameysid fasal cusub, waxaad tegaysaa calaamadan balaaska ah, waa ku dhufanee, kadibna waxaa ka dooranee create class. Wuxuu i weydiinayaa haddii aan leeyahay email oo iskuulka gaar u ah, malihiyaa dhaha, kadibna waa ka soconaa. Fasal cusub markaad sameynaysid wuxuu ku weydiinaa fasalka magac oo gaar ah haddii uu leeyahay, iyo maadada magaceeda, iyo qolka wax ku baranaysin haddii aad rabtid inaad gelisid nambarkiisa. Maadada waxaa geli kartaa meeshii subject laga rabay class name aad geli kartaa, oo waxaa dhigi kartaa English tusaale ahaan, fasalka 5aad camal. Inta badan labadan xabo la isticmaalaa, yani qolka nambarka iyo dadka ma geliyaan iyo subjectigan. Marka waxaa dhahaynaa create. waa kana ugu samaysma fasalki English 5aad home aan tegaynaa. waa kana. Haddii aad rabtid inaad dileedid, waxaad tegaysaa calaamadan 3 dhibic, kadibna waxaa dhahay archive. ma hubtaa ku dhaha yes. haddii oo si qaldan haddaa u dileed xatee weli wuxuu ku jiraa archived classes. haddii aad rabtid waa ka soo celi kartaa, haddii aad rabtidna toos u dileedi kartaa. waa kaas.